بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد waxaan ku jirnay taxanaheennii wacyigelinta ku saabsanaa midnimada ummadda iyo wacyigelinta diiniga iyo dal jacaylka iyo dowlad jacaylka iyo iscafinta iyo midnimada shacabka. haddaba walaalayaal annagoo arrimahaas oo maanta ummadda Soomaaliyeed diin ahaan iyo dal ahaan iyo dowlad ahaanba aad ugu baahan tahay mar kastaba jecel inaan ummaddeena ku baraarujinno, waxaan jecelnaa maanta inaan dul istaagno dhacdadii runtii taariikhiga ahayd shalay ka dhacday Kampala oo madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu maaragtay mowqifka taariikhiga ku qaatay in uu maaragtay qadiyadda Soomaaliya ka ilaaliyo in wax la yiraahdo tadwiil ama dowlado kaleeto ay faraqa ku qaataan oo ay ajandayaal ka dhigtaan oo ay siyaasadeeyaan oo ay danahooda dhex gashadaan oo qarannimadii Soomaaliya ay maaragtay dhaawac weyn uu soo gaaro. arrintaas oo ka mid ah xuquuqaha wadaniga ah ee dalka uu leeyahay iyo mas-uuliyaadka ugu sarreeya oo siyaadada iyo qarannimada taabanaysa oo madaxweynaha asalba xil ka saaran yahay oo isagu uu mas-uulka koowaad uu ka yahay ilaalinteeda. marka arrintaas runtii annaga culimada Soomaaliyeed haddaan nahay iyo shacabka Soomaaliyeedba si gaara ayaan ugu hambaleynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda, si gaarana waxaan ugu hambaleynaynaa ummaddeena iyo shacabkeena iyo nafteennaba. maxaa yeelay waxay tusinaysaa alxamdulilaahi qangaarnimo dhammaystiran ee dowladnimadii Soomaaliya ay gaartay iyo sharaftii iyo magacii iyo maqaamkii Soomaaliya inuu soo laabtay boqolkiiba boqol oo maanta kadib aysan dowladda dirisa oo ku marmarsiima ka dhiganaya ciidamadeena joogay oo maaragtay meeshaan Soomaaliya muddo joogay sida ciidankeena ugu joogaan annaguna siyaasadda ugu dhex jirnaan ugu labannahay oo aan saan rabna ka yeelaynaa ama dadka Soomaaliyeed aan wax u yeelinaynaa. arrintaas inay meesha ka baxday. madaxweynuhu waa dabcan nin professora oo aqoon-yahan sare ah, wuxuu og yahay xuduudaha sharciyadeed ee u kala yaalla dowladaha. dowladuna dowlad kaleeto arrimaheeda ma fargeli karto, waxayna ka mid tahay arrintaasu mawaahiiqda dowliga ah ee umam mutaxida ay ku dhisan tahay. waliba qodobada ugu waaweyn ay ka mid tahay cadamu tadakhul fi shu'uun daakhiliya likulli beledin duu siyaada. beled qarannimo leh oo dowladnimo u dhisan tahay inaan arrimihiisa daakhiliga la fargeli karin. saxiix waa la iska kaashan karaa arrimo ciidan, arrimo nabadgelyo, arrimo siyaasadeed, arrimo ganacsi, arrimo kaleeto, waxaasoo dhan waa furan yihiin. laakiin waxa weeye waa inuu ahaado tacaawunkaas tacaawun la yidhaahdo tacaawun niddi ah oo mutabaadal ah, yacni laba daraf oo sharciyad wada leh oo daraf walba uu ilaashanayo qiyaadadiisa iyo siyaadadiisa iyo qarannimadiisa ayaa masaalix ku heshiin kara. qof cid walbana waxaa xil ka saaraya inay ilaashato qarannimadeeda iyo mas-uuliyaddeeda. marka arrintaas waa arrin asaasi ah. arrintaasu waxay aasaas ku tahay dowladnimada iyo diinta islaamkaba. ilaahay subxaanahu watacaala 1450 sano ka hor aayadihii qur-aanka ay soo degay buu alla nooga warramay jala jalaaluhu. alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala isagoo u sameynaya yani frame guud ama idaar u sameynaya ama xuduudo u xadeynaya xiriirka arrimaha dibadda ee dalka muslimka oo dalalka caalamka uu la yeelan karo ee aan muslimiinta ahayn. muslimiintu ayagu waa isku dhabadarsan yihiin, waa isku marawaranayaan, waa walaalo. oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay innama almu'minuuna ikhwa. ikhuwaduna waa walaaltinimada, wax ka dambeeya ma jiraan. dadka mu'miniinta oo ilaahay u rumaysan waa walaalo, waxay wadaagaan dhiigga iyo dheefta iyo nafta iyo maalka iyo dalka iyo dadka iyo wax walbaa ka dhexeeya. hadday xuduuda kale leeyihiin xuduudahaas waa isku qiimeynayaan, waa isku ixtiraamayaan, laakiin akhiiran waa dad walaalo ah oo waxba yani kama hallaabi karaan. laakiin waxa laga hadlayo waa dadka ajnabiga ah. marka dadka ajnabiga ah marka lala xiriirayo marka ilaahay wuxuu ka sameeyey xuduudo ayuu u sameeyey. alla wuxuu leeyahay suurada suuratul mumtaxina laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim in allaha yuxibu almuqsidiin. ilaahay subxaanahu watacaala idinka reebi maayo kuwan diinta idinkula diriirsanayn, dalkiinana aan damac uga jirin oon hunguriyeynayn oo aan arrimihiina iyo umuurihiina shu-uuntiina aan faragelinayn in aad u baarinimo samaysaan oo macnaha aad wanaag
كل حريرتان أو الحرير في عسل السمايستان ولما إلهي وحو جعل يكوى قرصور ياشا ومقصدين هو عدالة سما ياشا ومعنى هذا لقوضه إن أذن قف كانوا دينته وكان السهر جدا من دينته سوالف سنتين أذن عدالة درء سمعين ومركز عدالة أجرتد مسلم يقال بعد عدل وهات إذا لقوضه معناه مسلمين تمروا مقصدين وايا وهذا عدالة العالية مركز حد قدب مرنا كما جرو سيدا لو قد يدين لو حد قدب يا إلهي قد يدين إن يقول حد قدب سمايا مرنا لو ما أقول حد قدب في مركز تاس مركز وأنا لا فصحي عد كستا oo aan xadgudub ku sameeyeen qaranimadaada sharafkaaga dalkaaga diintaada cilaaqada sameeyso qaybta horan ka hadlayna waa online iskaashi amniga la sameyn karaa iskaashi ciidan la sameyn karaa mid dhaqaale mid military mid ganacsi wax walba xogaa la isdhaafsan karaa wixii islaamka aan khatar ku ahayn oo dalalka masaalixdooda waa la isdhaafsan karaa waa laga tacaawin karaa ila aakhiri marka taas marka waa nala fasaxay waa qismiga iijaabiga ah aan dhibaatada keenayn inay dadka muslimiinta dib lagu gaarsiinayn diintooda iyo dalkooda iyo qarannimadoodaba tacaawun ayaa oo furan oo weliba cadaalad inuu ku dhisnaa la rabo oo Ilaahay noogu fasaxay fiir marka qaybta la diidan marka mandaqada oo mandaqatul xamra mandaqada guduudan oo aan la geli karin soodinta guduudan fiir waa mid hadda madaxweynuhu shalay uu ka dhaartay oo diiday in la soo galo waa arrin muhiim ah alla wuxuu leeyahay inma yanhaakum Allahu 'anil ladina qaataluukum fid diin وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله وحوس إذن كريبا يا أبو يريد مركو تيهر إذن فصحي كوا إذن كلا دقال لما الدينتين أما إذن كلا إذن دون إذن كساران دولة المدينة دلكين إذن كساران وإن كفر القليان أمورهنا دلكين خصية كو دلكين وحالقا وذا ديار waxaa laga wadaa culimadu leeyihiin waa dalka oo dhan ma laga wadaa diyaartu guriga dhisano ahane waa dalkaaga ku faragelinayo umuriisa oo rabo inay siyaadadaada iyo qarannimadaada iyo sharafkaaga iyo masiirkaaga ayagu ay wax kula maamulaan koos lama ogola marka koos uu Ilaahay idin ka reebaa leeyahay alla idin koos waxa weeye waa cadow waxay mardaadii kugula dhagan yihiin adii maarta xirreed hadii lagu kula dhigo mogtaa waa cawradaad banaanka soo dhigo marka marna ma aqbalaysid واسكف الجنة يساعدك ولا دكتور مركا دين كاغا يدل كاغا قرن مداد يشرف كاغا يجرتان كاغا أمورها جدها ومدة هذا كله الحياة عد أجنبي إني سفر جلس حرام إلهي واحد سبحانه وتعالى تاسنا رنت مدحونا إلهي نوا فدي وأنا أرهن كوجولستي وأنا أرهن لجوء أول بقى مسؤولية مرة بدل لجود دور تبعي إن أو يهاي قف أمانة قرن كحجن كرين لو جاي أقوان عن إيش شخصي عن وأنا كقول يسوي والحمد لله أرنتانو مركا وحال الدنيا دتك الصومالي ده وحارب أنا عبد مسألة سقدرن وحال سقدرن دتك قاركود قارن منك السياسيين تقاركود إن أي مدحونا حسن الشيخ محمود وحكون دليل سياسة كقبان أو مثلا أي قبان أنا يجعلان لها إن أنت مارت السياسة ده كلها ترتمان أي كرسي كتورتان وحارب أنا هل كان قاعد يرد الصومالي وقاعد أو صراع معارضة الصومالي مقع اللو يقانو السياسيين الصومالي كو عام بحين ما أهن نصيحه يقف مدحة قرضة وقال إن لو قال نصيحه ما أها إن نن مدحة انتلس دياري وحزب الله السمايستو جانس لو قاعدة أو لا ترتمى أو كرسي قال هدي لقعت كذا عضو لقعت كذا لقعته وحصلنا وبنيه عالم كنا يقانا عالم متحضر وحضارة الدولة النمذا iyo thaqaafaadka iyo xadaaraadka gaamreeya siyaasadda dawladnimada ku gaamray nidaamka dawlad madaniga ay u xisaabtaan sidaas weey waa in dawladdu waxyaabaha ku qaldantaana lagu dhaliilo si asluubaysan oo aan wax duminayn mujtamaca kala geeynayn colaadana aan hurinayn isla markaasna lagu la tartamo siyaasadka lagu la tartamo oo inta axzaab la sameesto oo maaragtay dastuurka iyo siyaasadkiisa iyo arrimihiisa dhexdiisa lagu tartamo macnaha in markaas qofkaas xisbigaas hadii kafada ama miisaanka shacabka codka oo mucaaradka oo helo inuu markaa xisbiga xaakimka meesha ka baxo oo xisbiga mucaaradka oo meesha la wareego oo sidaas loo kala qaato xukunka وتلك الأيام نداولها بين الناس وقيب كمذا السنة إلهي وتداولك حكمك استلمها وأنا أهرق يوم بضن ولا غبار عليها وفيعا وحتى إن كسر الدولة دي إسلامك أي سنقاب كاسفا فاسن وجري جرين
inkastoo doorasho ay islaamka uu bilaabay Sayd Cusmaan ibn Affan doorasho qof cod lagu doortay oo ku soo baxay saxaabadu ay codeysay rag iyo dumarba oo cod ka badnay markuu Cusmaan helay Sayd Cali uu ka helay saas uu ku soo baxay haddana kadib xukunka islaamku waraasi iyo mulkiya iyo dawlad Bani Umayya iyo Bani Abbas iyo dhinac kale la aaday marka ahdigii oo khulafaa ur-raashidiin wadadu ku socday waxay ahayd wadadan dawlad la kala tartan iyo shuura ku dhisan xukuumadda shuura la dhihi jiray marka dambe xukuumad malakiya ay aaday asalna waxa islaamka agtiisa asal ku ah bani aadamkuna uu jecel yahay ilaahayna uu diintiisa ku taqriiriyay waa nidaamka shuurada waa dawladaha madaniga maanta oo xataa muslim iyo gaalba ma isugu jirana waa mid hadda ay doorteen oo wadada ugu fiican wax lagu kala qaato wadada silmiga ah shuurada ku dhisan doorashooyin ku dhisan intikhaabaadka ku dhisan process la isku raacsan yahay ku dhisan in wax lagu kala wareego marka qaybtaas la qubaar calayha intaas culimaduna waa taageersan tahay waana maartay mabda guud oo wanaagsan oo islaaxiya asalna wuxuu sal ku hayaa qaacidadaas shuurada oo Allah uu yiri waa amru mashura baynahum laakiin waxa nasiib darro ah dadkeena Soomaalida qaarkood in ay hadda aan hebel aan dhahayn in mucaaradnimada loo fahmo kaliya in maanta oo dhan qofka xukunka jooga dhaliishiisa caydiisa aflagaadadiisa wax tasfiih yani أحلامه وأعماله وحكستو سماية وحكستو يكسنايو إن قلن عس ولا سارو حمان ولا سفايو وأسجد أنا قلت تشخيصية إنه يعني مخرب مفسد وحول بحمان لا حمان تخليه لقى أيضا لبحي شات اللي قليل إلى معارض نوم تاسو أمريكا قاركوت كينيس إن حتى تدكش شيئها هاي أي كفى إيديستان أنا هذا ليه ما قف صومالي وسياسي وميركيسو وجوجو وطني ودلكان ولا شيء ayaa shisheeye inta u aadaa wuxuu leeyahay kala dalkayga burburi oo aniga danahan isii ma dhahayo oo heerkaas uga maqulsan niga siyaasiyiinta inkastoo qaabkooda dhaqankooda qaab dulaalnimo isaga egyahay iyo dadaan codna in helayna hadii xataa doorasho la aado oo weligood wareega koobaad xataa meel sare aan ka soo gaarin ugu qaylo badan oo ugu dhib badan oo maanta dhan wax qoraayo oo maanta dhan madaxda aflagaadeenayo oo nasiib darro siyaasi loo yaqaan kaaga daran waa siyaasi cod dheer aan ugu leeyahay qatar ah markaas maanta la amaana wuxuu soo taagan kaliya aflagaado iyo cay iyo rajabeel umada inuu geliyo iyo maanta dhan inuu ajnabi u sacabtumo وحتى موقف كشلا كمبالا كدعايا waxaan arkay nin siyaasiyiinta kamid ah dhahaya shal dhulka lagu jiiday madaxweynaha Soomaaliya dhulka yani hatta madaxweynaha Soomaaliya inuu hooyay sharafka Soomaaliyeed ma qiimay kaliya Soomaaliya inay qiimo leedahay dal tahay asagoo in ka soo sida muuqatay weligiis xukumayeen ninkaas sida muuqanaysa oo uusan kalsooni oo ku xukumo uusan lahayn maalin walba kaarkiisa uu soo gubanayo oo iska noqdo dulaal siyaasi oo iska maaratay aan maleynayo inuu dawlado xoogo dhilaho masaariif uga helalo waxyaabaha uu qorqorayo iyo aflagaadadaasi waxaas wax lagu siiyo laakiin in la aflagaadeeyo oo baraha bulshada mid kamid ah la yiraahdo madaxweynaha dhulka lagu jiiday oo waajibiyo beesha caalamka dhulku jiido ihaaneysatay waxay tusinaysaa niyad xumo haddana waaqic ma aan kaaga daran haddana siyaasi uu sheeganaya yani arinta Soomaaliya dhan shalay ay aad u mutaabaciinaysay oo banaanka madaxweynaha Soomaaliya uu isaga dhigay ajandihii markii la damcay in maartay communique lagu soo daro ama bayaanka lagu soo daro in Soomaaliya ay wadamada ciidamada ku joogaan shantaahu ay arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyagu ay lugaha la soo galaan oo ay walaaqaan gacanta la soo galaan oo wiri maya arintaas waa arin Soomaaliya u taala arin dawladaha gobolka iyo beesha caalamka iyo wax mas'uuliyad ka saaran ma jirto Soomaaliya iska leh arinta laga saaro bayaanka mushtaraka waa laga saaro markaas la yiri dadka Soomaaliyeed ayaga ayaa madax banaan siyaasadooda iyo daqowdooda dhaqanka iyo waxooda iyo maaratay ayaga iyo dawladda Soomaaliya ayaa iska leh arrimaha Soomaaliya waana waxaanu maaratay yani ila akhiri marka wala tawjiih sax wadadii saxda ah ee madaxweynuhu gurida wadada qaldaneed hore ay u barteen oo 15 sano ka Kampala Accord wax la yiraahdo inoo sameeyeen sheekadii iyada ayadoo maskaxdooda ku qafneeda laga tuuray waa laga dhaqay maskaxdooda marka walaalayaal marka arintaas waa arin laga maarmaana waxa kale oo rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waxaan dhageystay waraysi jananka ciidamada Africom ugu sareeyo horeyna 19 ilaa 22 halkan militariga Mareykanka mas'uul uga ahaa arrimaha Soomaaliya oo ciidamada danab tababarkooda iyo gacan ku hayntooda gacanta ku hayay jananka
ayaan waraysiga Cumar Faaruq ka qaadan dhageysanahay runtiis wuxuu u hadlay si cajiib ah fiiri dowladaha iyo saraakiisha dowladaha ka socota ama siyaasiyiinta markay ka hadlayaan arrimaha dowladnimada arrimaha Soomaaliya wadada dowladnimada dhabta ay ku hadlayaan waxaan ay ku hadlayaan xataa kuwan Soomaalidu يعني ما سو أجمرين حتى نكاد حاله ويدي سؤال ولي وريه ويدي عمر فاروق وحوري أرمها أمنية الصومالية هي سياسة ده إسخلاف كذا هي استوقف سياسة ده هي أرمها ساسة من لقيها بس سياسة سامين إنه كويه لتو ما رت الدولة مريكون سوى عرفتها سؤال معناه أساس ودوها توقتي سعجيبة المركبات اللي سكرتين وحوري أرمها سياسة ده الصومالية دولة الصومالية ده اللي جربوا إني جهيزوا أمنية مركل ويديو لي ما لقيها بقى إن جعان سيسين دولة الصومالية وأيضا كتجينا ضد بدن وحي قبان إن الصومال ودور كوجي دين يسينا وحوري مايا الصومال دور كوجي دين مايا ورنا أقوم جيدنا أنا قربت ناجرنا العالم كم بحجرنا حدنا الديار ونا هلا كوحان دورنا إن أنا أرجع دولة الصومالية وطلاب قاعدة وأمنية إذا إذا قعدت كوقف ستة الصومالية أيضا إسكال إني ثلاثة قاعدته سياسة إذا صحته أمنية أنا قعدت كوقف ستة أنه هو كابينا كريه لكن ما فرق لي كرنا wuxuu kale waliba sheegay wuxuu yiri hadii ay dawladdu ay mas'uuliyadkeeda qaadatana annagu wuxuu yiri waxaan jecelnahay dalkan inaan maalgashi badan ku sameysano aan soo degno aan nimaado ila akhri طبعا مسؤولينta qaranka ugu sareysa madaxweynaha ayuu la kulmay iyo isaga wafdigiisa waa xogtaas dawladda iyo macnaha waa dhaxmartay laakiin meesha ula jeedo waxay ahayd qiraa'ada ama akhriska jananka Mareykanka ah oo ninka Afrika oo dhan ciidanka jooga iyo saldhigyada ku yaala Mareykanka ugu sareeya ah oo taliska Africom jooga Djibouti fadhiya wuxuu fahmay laayin dadka qaar mucaarad sheeganay qaarkood macna wuxuu yiri arrimaha Soomaaliya baa iska leh Soomaali baa leh amnigeeda iyo siyaasadeeda iyo arrimaheeda iyo u degi lahayd waxa la rabaa in dawladda Soomaaliya looga dambeeyo anoo idan uga dambeeyna buu marka intaas in la fahmo la rabaa marka walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa aan ilaahay u noqono ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa'tasimu bihablillahi jamii'an wa la tafarraqu xariga ilaahay in la wada qabsado ومدى اللمدايو عن تفرارق لقى إلى أي واجب دلك وولاله دلك وعدو بدن بوليه هاي دولة أي أوفر دي جمر جابن ودونا إنك ردران كو عيد مدود هذا يجوجان أنا أقول إن عيد مدود دجال هذا السنة كي كبدن صعدة أي سنة هذا ما دجال كي قريب جنين مركل أقرب رمير اللوجيست كذا ديار ذا وحير محتوى قاعد وجع كرتا لكن عيد مدى لقطة حبد كذا دمناي ألا تقولوا هذا مجنين ciidanka Soomaaliya soo maanta intuu yahay tayo ku dhameyn hub ku dhameyn oo diyaarado toos oo isku leeysan jirin oo markuu diyaarado u baahdo Mareykanka la wacay saraakiishu wacayaan danam gorgorna ay Turkiga wacanayaan oo Turkiga markaas diyaaradiisa isbeesidiisa ka soo beerqdaar iyo wax soo dirdiraayo arrintan ay bidaayta bilow ay tahay ayay joogsan waayeen argixisadaasa laga safeeyay dhulka marka oo xamarna amnigeeda marka horeba faraal lagu sii qabsadayo oo laga nadiifiyay alxamdulillah marka dawladda Soomaaliya awood ay u leedahay dalka inay la wareegto qorshaheedana waa u degsan yahay marka waxaan leeyahay walaalaha mucaaradka dad sharaf lahaatiin qaarkiin dalkan hore soo hogaamiyeen runtii waxaan halkan si gaar ugu hambaleynayaa xisbiga nolol iyo nabad zaciimka hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo asagu mowqifka diiday bayaanka soo saaray inaan cid ajnabi ah aysan arrimaha Soomaaliya soo fargeli karin ee Soomaaliya waxeeda xalisato aad ugu maasan yahay madaxweyne hore وانا أرنت اللي بباهي هاي وانا اللي قيق أرنت وضنيا ذا يموقف كاس إنه كذا ذقي هاي مركا رجع كلاتنا وحن لنا هاي ضد شرف لها تين ذيك لفتينه مدحوينها هراء كجرة مدحوين الشيخ شريف وأنا محترمة ذل كان واحد سواق بطي رجال شورى رجال خير رجال ربل رجال ساعد وحن لنا هاي يحملها كلاتا ولا جوجبة إن وحي سمعكم هذا وابهنا هاي بقت اللي معونه وهي البجعل أنا قنجرة اللي معونه وحويان وحي إلهي دين قرأ وهيلكسين دلكان دورشوا هادو كسعدا دورشيد قرن كانوا ودمنتو إذنكو سجارة إذن خصيصي واحد 8 سنين والد لحلين دونا هدد قد قربتين أنا بحكي لتين وحلا فيرين كروا يحل جدا دي لجارو مركا دلك يعني أجنبي اللون لوجن والضنيد اللي إذن كوي يقينا إلى شذا وحي إلهي دين قرأ وهيلكسين وحال إذن كربا إن دولة الصومالية لفدي 60 إن هذا وهنقل تاجنا أجنبي إنه أنت الصومالي سفر الجليو برشر صاروا إذن قرب إذن نقضوا حكم إذن مارتي إذن صدعي وحاس وحلقة فكرة معهم وحنا نلقى فكرة حتى معهم وحدد كينا كويسين هلي ميسين وحدد كينا كل شيء نقلنا إذا مدي ذكرته مركا وحن لا مركا ولا ليالو أن الصومالي نمضى إلى لنا أن إسرائيل نمضى إلى لنا أن ذلك وترنا أن دولة نمضى إلى شنو وحويان ترتنكا
kursiga madaxtooyada oo idinku hadda aad u tartamaysiin oo kulligiin waxaad rabtiin waa inaad madaxweyne xasan kursiga maanta uu fadhiyo inuusan mar labaad kusoo laaban dowlo labaad oo uga dhigan dowlo saddexaad laakiin hadda dowladda labaad ay noqonaysaa labada dowlo isku xigta weeye waxa oo maaragtay inuusan marka mar saddexaad kusoo laaban ama mar labaad uusan dowladan ku xigta haddana uusan imaanin idinku aad booska aad tagtiin oo nin walba uu niyeysan yahay marka haddii alla u qoro waa helayaa marka haddii madaxweyne xasan mar kale ilaahay u qorana inuu mar saddexaad soomaaliya daadiyana qof ka celi karta ma jirto calaamadihii uu isbedel badan oo hadda uu samaynayo dalkan inuu dibdam u xukumo uu dibdam u daadiyey 5 sano oo soo socotana runtii ilaa xad way muuqataa oo waxa weeyaan isbedelo from A to Z la dhihi karo ama ugu yaraan boqolkiiba 70 ka badan ayuu dalka gaarsiiyey 4 sano iyo bishii hadda uu dalka xukumayo marka ummadda Soomaaliyeedna waxa lagu yaqaanaa sida ummadaha caalamkaba Mareykanka waad aragtay madaxweynaha haddii 4 sano hore uu si fiican u shaqeeyo weligiis wax laga magaliyo dhag waa loogu sii tuuraa 4 sano waad ogeedeen Bush ayaa loogu tuuray oo waliba iska nin wareersan ahaa Clinton ka horeeyay 8 soo qaatay Bill Clinton waa qaatay marka odayaashan hadda isaga dambeeyay oo maartay Biden iyo kan lamtiisu hadda wuxuu rabaa marka inuu yimaado laakiin uma leeyahay inuu suurtoobaysa ilaahay u taalaay umuman madaxweynaha in waxa dabiici ahayd haddii dalka laga fikiraayo aniga waxaan rajaynayaa runtii walaalaha mucaaradka ah inay madaxweynaha ugu hambaliyeeyaan ciidamada uu dhisaayo deen cafiskii oo xilligiis ku soo aado asagoo u gabagabeeyay cunna qabateyntii oo dalka laga qaaday xilligiisii bulshada bariga Afrika oo lagu beeray xilligiisii oo si qurux badan loogu beeray dhammaan shuruucdii iyo xafiisyadii la wada buuxiyay al-shabaab oo magaaladan caasimadda dhibaatadii ku hay jireen la ogaa oo uu ka nadiifiyay haddana uu gobolada uga daba tagay ku jabiyay ciidamadii Soomaaliya uu dhisay oo meel sare gaarsiiyay waqooyi bariyo waxaad ogeed ku socdeen xabada iyo dhibaato ku jireen markuu xog imaanay oo ku guuleystay inuu amni ku soo celiyo maamul u sameeyo dawladana aqoonsatay ixtiraam waay weyn wax weyn waay ummad la leenayo 800 qof fadli dhimatay wax salan ma aha oo leen qaadi ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا واحد ذاتك الصوماليين إلا بدبادين كان ينتهي إن هالقف ولا سعانو مدفع الورداي قيس الدلاي مدرسة البابين أسبال بالبرناي إن استوب تلا يرادو ذاتك دب له أبابلو للدعمية أقونس لو سماي شرعي لو سماي لا قرب استاغو ما أنت إيه صارت تود ما شادا يعني إن بدرالك الصومالية لما تابتان كأي ما أنت الدولة دي ولا عليها إنها تركيا شرفت بدنات إن الله صحيح هاي رجوين كقمنا إن مرة ونقر على شيء صبر قضاء مش ذلك والصومالي سيدا محللين تدونك إلى هذا كمان نقدنا تطبقان كسنة سوسع تجده هذا يعني وين أو مارتي أو كمذا بيك يعني مارتي ريد كنتريس كا ديس أفريقيا أفريقيا ما أفريقيا بكيال ذلك أجو قنصن مت كمذا مركا النجا مركا وحويان جولهاس وحي هذا إن لد ما شاء الله مدحونها ولا لد بالدقو oo la fariisto la yiraahdo madaxweyne intaas waa ku fiican tahay waan kugu hambaleenana laakiin inta ana xawo hoos ku dhac kugu yimid intaana maartay soo sax doorashada noo qabo dhaxda noo soo dhig marka asaga xataa kalsooni u qaadi lahay yaani tawatturka iyo xasaasiyada faraha badan meesha ku jirta meesha ka bixi lahay idinkana wadada ugu sahlan oo ay dhici kartaba inaad ku soo bixi lahaydeen taas waay bulshada Soomaaliyeed idinka qanci lahayd ogaan lahayd inaad yihiin dad yaani dawlad taageersan isbedel doon ah laakiin injaazaadka iyo guulaha Soomaaliya gaartay boqol garab taagan marka arintaas marka walaalaha siyaasiyiinta sharafta leh waxaan leeyahay tawajuha noocaas ee cadaawada iyo cuqdada iyo nacaybka iyo yaani maanta oo dhan rajaa beel umada loo sheegayo iyo ajnabi in loo gacan haati siyaasadaas ka soo leexda wadadaas wada xiran waay wadada waxa soo aadin ah Soomaalinimada dal dhiska qabta Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya injaazaadka gaartay inaad baliyaysan inaad maartay tareenkaas ummaddu ay saaran tahay dawladdu saaran tahay socdo inaad idinkuna hore ka raacdaan oo aad biri markaas dalkan dad maamushaan dawlad haybad aad maamushaan iyo ummad isku duuban iyo dal sharaf leh ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dalkeena dadkeena noo hagaajiyo khayr badan baan rajaynaynaa markale waxaan leenahay madaxweyne xasan aad iyo aad baad ugu maasan tahay muwaffaq daa'iman marka halkaasna ka sii wad waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxweyne sida la isla wada gartay oo Mareykan oo adduunka maanta ugu weyn Soomaaliya dawlad muhiim ah runtii garab badan siiyay walaalaha Turkiga oo iyaguna dalka ugu muhiimsan dalka Islaamka ama caalamka ugu muhiimsan oo garab taagan adoo cid walba oo arintu khusaysa kaashanaya maanta tuutaha marka la u gasho argagixisada dalka in laga safeeyo sida wax badan aan ku celceliyay 5 bilood oo sanadkan ka dhiman
waxaan rabnaa in argagixisada laga farxasho Soomaaliya cid walbana loo kaashan karo ayagana loogu baaqo inay isdhiibaan ay soo laabtaan dadka dhahayo airportka la aada iyo waxaan baqaynaa in Taliban meesha qabsatay iyo khuraafaadkaasna baalka la yiraahdo argagixisana Taliban ma ahan Taliban waxay ahaayeen dad qowmiyiin oo Pashtuun ah oo muslimiin ah sunna wal jamaa oo dadka gaalaysiin oo ayagu awood inay soo ceshadaan raba nimankii al-qaacida oo ku soo dhex cararay bay xoog difaacina argagixisada la dhexgeliyay yoom min ayaam markii dambana waabatay kuwaas iska baaba'een marka iyaan lagu qaldamin nimankaanu bays qabaa'il ma haystaan iyo qowmiyaad sida nimankaas Pashtuunka ayo kaleeto oo kulligood ka wada qaato qabaa'il dhan mid diineedna ma haystaan oo culimadii Soomaaliyeed lama isku raacday inay khawaarij yihiin oo diinta isla shaqo ku lahayn baawarna ma haystaan waxa weeyaan waa sacaaliig maxaysata ah oo cisaabaad oo meelaha ku gagamata in loo dhaqaaqo ma u baahan yihiin hadii loo dhaqaaqana sidii waagi aaday maalmaha lagu la darro ogeedeen oo qasriga ogeed ka dhisteenay xarun ka dhigteen waa ka carareen haddana hadii madaxweynuhu insha Allah uu tagi doonaa marna isaga qasriga aaday ku yaal ayaa fadhiiso dooneen waxa weeye hadii loo dhaqaaqo way ka carari doonaan galcad waa ogeedeen dagaal kuma gelin waa ka carareen ruunirgood waa ka carareen kulli deegaanada ay ka carareen markii dambe xoogo qaladaad ciidanka iyo awaamir isdiidan iyo xoogo dhib yarna ayay ku soo laabteen iyagoo waliba baqaaya oo baqdintu gaarsiisay xataa dadkii u yimideen inaysan hadda waxna ka reebi karin waxna amri karin oo dadkii free atiin ay yiraahdeen maxay waxay arkeen hal qof inaysan la socon oo maanta la iska caweynaayo wax kasta la iska cunaayo jaadkii la iska roogayo xumar dhan xataa iyo fusq xataa aysan ma dhihi karin dadkii ay xorriyad iska siiyeen iyagoo isla ku gamada marka wax kastay tahayba waxaasu xorriyad ma ahane waxa weeyaan waa in sarcaadine ilaa ay dawladda Soomaaliya isaga soo dhiibaan oo ay ka noqdaan fikirka gaalaysiinta argagixisada waxa weeyaan waa niman mujrimiin ah oo ay waajib tahay in la soo qabtay sharciga la horgeeyo haddii tooba keenin ilaahay baan yiri subhanahu wa ta'ala markuu ka hadlaya aayadda 33 iyo 34 ee suuratul maa'ida inma jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu aayadda 33 markuu ka hadlay sida loo galaayo an yuqatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim warjuluhum aw yunfaw min al-ard afartaas cuquba u guriday ayuu aayadda labaad ee 34 wuxuu ku yiri illa alladhina tawaw min qabl an taqdiru alayhim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim illa kuwa tooba keen intaadan gacanta ku dhigana maahina ogaada kuwaas ilaahay dibigooda waa dhaafay idinkuna iska dhaafo iska cafiyo marka waxaan leeyahay jaaniskaas ay sidina aayadda 34 ee maa'ida argagixisay hamoogaana ka faa'iideysta tooba keena ka soo laabta waxa la idin ballan qaadaa kulligiin Abu Ubayda iyo Cali Dheere iyo mahadkaratay iyo kuwa lamida iyo dhamaantood inaad hadaad wax kasto ijraam sameeyeen hadaad tiraahin Allahumma tubna ilayka wa ila wa kan noqonay waxaan umada ku leeyahay dhiigan daadinaynay qaraxyadii maataleyski takfiirki xumaantiin hadaad tiraahin dawladdiina soo xiriirtiin kulligeena culimada iyo shacabka Soomaaliyeed calimo qoyan ku soo dhaweynayna niman tala xumo ku dhacday fasaad aqadi ku dhacay umadan lagu imtixaanay dibadda laga soo toojiyay sirdoona iyo baqti ay soo dhaxmareen laakiin maanta tooba keenay baa tiwalin soo dhaweynaa waan idin badbaadina mana la idinku manaysanayo arintaas oo ma ahan arin manaysay ilaahay baa quraankiisa ku sheegayo qofkii intan gacanta lagu dhigin ka soo laabtay fikirkaas hal cafiyo yiri halkan adimigiisa ilaahay baa dhaafay idinku dhaafay marka aayadaas quraanka idin badbaadinaysa ka faa'iideysta madaxweynaha marka waxaan ugu baaqaynaa mar kale in uu 5 bilood sanadkan ka dhiman dalka uu gacanta ku dhigo qabto si 27 bilowgeeda doorashadii qaran loo qabto oo qof cod ka aheeday oo lagu dooranayay insha Allah baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal iyo madaxweynaha Soomaaliya sallallahu alayhi wa sallam wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in